جددوا يا شباب عزمكم بالكتاب واقرؤوا آيه تستلذ الخطب. جددوا يا شباب عزمكم بالكتاب واقرؤوا آيه تستلذ الخطب. نبي محمد عليه الصلاة والسلام حديث البخاري بحط المامي أنس بن مالك حلي ما انتقم لنفسه أبدا ولقي ما أرقدا هذه اللي هذا قف عادي ولقي ما أرقدا هذا رقم معقول لكن قفك لليه ولقي ما أرقدا حصى مرين رشد وحب بن آدم واسكب يقف بن آدم اللي هو قردام يقردم بالوتجاني يعني نبي محمد دولكي سوى لغا صار وحوق لغا صار وحال اسكو دايين لدلو او بحصده ولو بحصد كي لغا بحاردين كاسا لاريي او كل ميل كغلي oo dhulka loo degayo looma deynina waa laga daba tiray oo waa lagu soo duulay oo Madiina intaas oo goor lagu soo weeraray اغتيال baa la isku dayay lagu sameeyo safety inta mid la isla dultaay waxa la isku dayay in sun lagu kharajiyo yahuudinta sun hiligu marisay bay siisay dabeetana intuu yeeray ku yiri war maxaa ku samayseen hilibkan run ma sheegaysaan haa bay ku yiraahdeen su'aal weydiiyay su'aali way uga wada been sheegay abiin waayo ayna reer fulaan baa waa beentii ku yiri hebel hebel baa ina dhalay waa dad saxba ilaahay saada saxa su'aal kale weydiiyay naarta galaysan haa bay yiraahdeen afar cashan anagu ku jireen ay idinkaan uga dambeynaya wallahi inaan idinka dambeynay buu nabigu ku yiri salaatu wasalaam haddana su'aal kale haddaan idin weydiiyo run ma sheegaysaan buu yiri asay maxamed saray mad waxaan ku sheegnay waa adiga ay wada ogaanaysaa run baan ku sheegay hilibka ma sumayseen buu yiri madaxweyne hilib qurunay loo soo sumeeyay oo ku sumeeyay hor taagan yihiin xoyeeli lahaa maanta dunida ku nool hilib loo sumeeyay ninkii cidii naga qasamaysay hortiisa taagan tahay waxay dhahdaan haa waa musubayna maxaa sumaysay ku yiri yahuud waxa lagu tilmaamay inay dad aqli badan yihiin waxaanu rabnay haddaad beenaala tahay inaad ku dhimatid haddaad nabi tahay inaad kulli wad badbaadi lahayd bay dhahdeen saanu soconay sida dambe xadka muqarbiya maxaan wada leeyahay yani in sun lagu dilaa la isku dayay oo in badheed loo dilaa la isku dayay oo in gardaamo lagu dilaa bal in sixir lagu qabtaa la isku dayay labadii ibn al-asif iyo kooxda idan qof bina aadama wax kasta oo la yiraahdo kulli baba lagu dhibay ومع ذلك صفاتي شو maxay man taqama li nafsihi abad wali ma arbosanin sida wada Aisha waxa ku tiri ilaahay rasuulkiisa maalintii Uhud maalinkaaga dhib badan bay ku soo martay maalintii Uhud waxa ku dhacay nabiga yani munaafiqiin baa ciidankii saddex meelood oo meel ka jabsatay intii soo hadhay saxaabu yiri meel ilaaliyo waa ka soo baxay kadib ciidankiisi waa la jabiyay hal la jabiyay ragii waa weynaa agtiisa joogay 70 ka mid ah la dilay adeerkii baa lagu dilay Hamza oo beerkiisa waliba la cunay waxa la tijaabiyay isaga maqabo koofiyadu sitay madaxa ka gashay dhoolahan hoose mid baa laga jabiyay dhiigu dhulka buu dareerayo uu joogsan waayay dhiigina buu ilaa dab lagu dhajinayay waxa ku dhacay salaadii duhur fadhigu ku tukaday salaadii markay ka sii baxayeen meesha buurtii yareeyay meesha ay siraadeen buura uu fuuli kari waayo waa loo fadhiistay waxa soo dhiba soo gaaray markaas ay Aisha waxay leedahay maalinka aga dhib badan yaa aragtay bay ku tiri ilaahay rasuulkiisa markaas uu nabigu wuxuu ku yiri alayhi salaatu wasalaam tolka wax ka daran ma kala kulmay buu nabigu yiri tolka wax ka daran ma kala kulmay wuxuu ka warramay markaa nabigu maalintii Makka laga saaray ee uu iskaga tagay ee uu Taif tagay عبد يالي ابن كلال يونمان كاسي عبد يالي ابن كلال هي كوحدة ساي طائف نكسو صارين أو نكحرين نكسو صارين دبتنا سيدي هم ورور كسيدو قطين بيقولوا لقاقي سواء قررنا إن المال ومرية لم أفق بنقولي ما برارو فلم أفق إلا في قرن التعالي ماشي الله إذا قرن التعالي بركة بريي ayuun baan gartay buu leeyahay meesha aan socdo xaaladda isagoo ku sugan markii soo eriday oo Taif eriday
oo hamiga iyo warwarka haya uu leeyahay maan garanin meelaan uu socday ilaa iyo wuxuu maa sarfuun anigoo taagan qarna tacaali ayaa ilaahay cirka uga soo diray malag cusub baa yidhi waxaa la yidhi malagga kani waa malagga buuraha maamulkooda rabbiguu dhiibayo wax ka maamulay saa daraaddeed haddaad rabto ilaahay baa inkaa soo diray buu yidhi waxaa laygu yidhi ilaahay wuu maqlayaa waxa tolkaa kugu yidhaahdee nebi maxamedow haddaad rabto malagga kani labada buurood ee maka hareeraha ka xigo intuu gunta ka gooyo dam ku sii di sidaa laguu galo oo kuwa kuu galayna weliba gaala yihiin dee mala waxbaynu inagu odhanaya ilaahu midha ka reebin soo maha iyada xaalku halkaa maraya ayuu nebigu wuxuu leeya calayhi salaatu wasalaam bal arju an yukhrij allahu min aslaabihi man yacbud allaha waxdah walaa yushriku bihi shaya waxaan rajay in ilaahay dhabaradooda qaar ilaahay adeeca u ka soo saare amal kaluu nebigu wali sii qabaa markuu jabay غزوة أحد اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون بولها nimankii waxaa ku sameeyey isagoo ka xoog badan oo 8,000 oo askari wata buu soo galay kasuu yidhi maxaa malaynaysaa in lagu samaynayo sayidhi akhun kariim wabna akhun kariim markaas ay daldaleen wuxuu ku yidhi sida xadiidka xasankii tilmaamayo laa tasriba calaykum alyawm qisadii nebi yuusuf oo dalishay